السلام عليكم. waxaan rajaynaa dhamaantiin caafimaad qabtaan. Soo dhawaada mar kale. Waxaanu sii ambaqaadaynaa oo sii wadaynaa buuggeenii jacayl aan dhammaad lahayn. Qaybtiisii labaad ee igu habboon. Raadin malaa'ig. Lamaane kasta waxa uu raadiyaa qof wanaagsan si ay nolosha isula wadaagaan. Taasi waa wax wanaagsan. Qofka wanaagsani nusqaantaada ayuu kabi karaa oo ceebahaaga ayuu asturi karaa. Farxad ayuu ku siin karaa. laakiin waxaa jira qof kasta in maskaxdiisa ay ku jirto liis dheer oo shuruudo iyo sifooyin badan ay ku qoran yihiin, aadna u marayso inay xaqiiqada ka fog yihiin, oo qofka la raadinaya inuu yahay qof aan ceeb lahayn oo dhan walba ka dhammaystiran, inkasta oon anagaba ognahay inaynaan ahayn kuwa dhammaystiran. ninbaa hadda ka hor qoray warqad nin sheekh ah. wuxuu ku dhahay, waxaan rabaa inaad iga caawiso helitaanka gabar sifooyinka soo socda leh. gabadh dhalinyaro ah, aad u qurux badan, aadna taqaanid asalkeeda, edeb badan, dhowrsoon, degan, gabdhaha wax dheer, lacag badan iska leh, ninkeedana siinayso marka uu guursado, adeecaysa amarkiisa, raacaysana meel walba oo uu rabo. ninkii sheekha ahaa ayaa warqaddii intuu akhriyey ayuu warqad jawaaba u qoray asaga oo leh, haddii aan awood u lahaan lahaa inaan arko gabadhaas xaaskayga ibna Umu Casiisa, aan furi lahaa iyadana guursan lahaa. asaga oo taas ula jeeda, adiga waxaad raadinaysaa qof aan adduunka joogin. qofkii go'aansadaa inuu jeclaado qof aan lahayn wax gef ah wuxuu arki doonaa isaga oo meel cidla taagan. noloshu ma aha mid dhammaystiran, laakiin raali ahaanshaheena ayaa dhammaystiraya wax walba oo aan raadinayno. qofka kugu habboon laguma garto oo keliya hadalkiisa iyo muuqaalkiisa, laakiin waxa uu leeyahay astaamo kala duwan oo ka soocaya dadka dunida ku nool oo dhan. waa kuwan astaamaha wanaagsan ee qofka kugu habboon: qaadi kara mas'uuliyadda naftaada. lamaanaha kugu habboon waa qof aad ku tiirsanaan karto, ogna guurku inuu yahay mas'uuliyad loo baahan yahay labada dhinac inay ka soo baxaan. ka dareemaysid kalsooni iyo daacadnimo. qofka aad rabtid inaad la wadaagto nolosha waa inuu yahay qof aad agtiisa ku dareemayso kalsooni, daacadnimona aad ka dheehan kartid hadalkiisa iyo ficilkiisa. ixtiraama shakhsiyadaada. jacaylka waxa ka horeeya waa ixtiraamka. qofka kugu habboon wuxuu kuu muujiyaa qadarin, wuxuuna xushmeeyaa aragtidaada. qofkaa qostin kara, hubal waxaad u baahan tahay qof aad istaqosi kartaan, hadalkaagana xiise gaara u leh, sheekooyinkaaga si fiican u dhegaysta. jacaylkiisa ficilkiisa aad ka dareemaysid. jacaylka waxaa qiimo u yeelo waxay tahay ficilka. dhammaan cilaaqaadka waxay ku dhisan yihiin waa jacayl. jacaylkana waxa lagu muujiyaa ficilka. dadka hortooda kugu xushmeeya. qof kugu faani kara dadka hortooda iyo familkiisa waa qof kalsooni buuxda ku qaba. wuxuu aaminsan yahay inaad tahay qof uu ka doortay dadka oo dhan. wax kaa weydiiya xaaladahaaga. wuxuu mar kasta u arkaa muhiim xaaladaada iyo waxyaabaha adiga kugu saabsan, maadaamuu yahay qof nolosha kula qaybsan lahaa. fikirkiisu wuu cad yahay. qofka kugu habboon wuxuu mar kasta isku dayaa inuu kuu caddeeyo aragtidiisa nolosha si ay u fududaato isfahankiina. dareemahaaga fahmi kara. si dhaba u qaata dareem kasta, mar kasta kula soo gudboonaada, kadibna kaala hadla. aan marna u arkayn wax aan muhiim ahayn.